shanka caalamiga ee Universal Studios ku yaala magaalada London iyadoo saacada magaala madaxda ismaamulka deegaanka Soomaalida ee Jigjigana ay iminka 12 saacadood dhex dhaaftay ilaa iyo 17 daqiiqo iyo 30 second markana waa wararka Jigjiga madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee ismaamulka Itoobiya mudane Abdi Maxamuud Umar ayaa maanta ka qayb galay xaflad si aad loo soo agaasimay taasoo ay ku qalin jabiyeen arday gaaraysa ilaa iyo 213 arday oo bartay culumta dhinaca caafimaadka taasoo ujeedada ugu weyn ay ahayd barashadooda markay qalin jabiyaan sidan oo kale inay bulshadooda anfacaan kana hormariyaan dhinaca caafimaadka haddaba xafladaasi qalin jabinta ah ee ka dhacday deegaanka Soomaalida magaalada madaxda Jigjiga waxa warbixintan ka soo diray wariyahana Ahmed Kabo xaflad qalin jabin oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday hoolka shirarka ku yaala caasimada dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaana xafladan ku qalin jabiyay 213 arday wax ku bartay kulliyadda culumta caafimaadka ee Jigjiga waxaana xafladan goobjoog ka ah mas'uuliyiin sarsare oo kamid ah xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida dhaqaatiir iyo qaar kamid ah qurba joogta iyo waliba qaybaha bulshada ay ka kooban tahay iyo marti sharaf kale oo far badan waxaana khudbad lagu diirsaday ku furay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Abdi Maxamuud Umar ardayda iyo waalidkood dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda difacda lixaad waxaan leeyahay hambalyo anigoo ku hadlaya magaca dowladda deegaanka Soomaalida iyo magacaygaba waxaan maanta aad sharaf iigu ah islamarkaana ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xafladda qalin jabinta difacda lixaad ee kulliyadda culumta caafimaadka ee Jigjiga kadib waxaa hadalka qaatay kusimaha maareeyaha islamarkaana ku-xigeenka kulliyadda culumta caafimaadka ee magaalada Jigjiga mudane Maxamed Xuseen ardaydan oo muddo 3 sano wax ku baranayay kulliyadan ayaa waxa ay ku qalin jabiyeen shahaadada diblomaha iyagoo bartay qaybo kala duwan oo ku wajahan arrimaha caafimaadka ardaydan qalin jabisay oo tiradooda ay gaaraysay 213 ayaa 108 kamid waxay ahaayeen gabdho halka 105 soo haray yihiin wiilal taasoo tirada gabdhaha ay ka badan tahay tan wiilasha kuna timid dadaal xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ugu jirto sare u qaadida waxbarashada gabdhaha dufcadan ayaa ah dufcadii lixaad waxaana hore uga qalin jabiyay iyo 100 arday kuwaasoo ka howlgalay dhammaan cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee ku kala yaala gobolada degmooyinka iyo tuulayaasha hoos yimaada dowladda deegaanka Soomaalida haatanna waxaa kulliyadda culumta caafimaadka ee Jigjiga wax ku barta 1300 oo arday oo qaar ka mid ah ardaydaas ay ka kala yimaadeen maamul goboleedka Puntland iyo dalka Somaliland oo deeq waxbarasho ka helay dalkan Itoobiya gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaalida gabagabadii buugga qalin jabinta ayaa mas'uuliyiin ugu horeeya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Abdi Maxamuud Umar buugga qalin jabinta waxa ay guddoonsiiyeen dhammaan ardaydii ka qalin jabinaysay haddaba markii ay soo gabagabowday xafladan ayaa qaar ka mid ah ardaydii halkaa ku qalin jabisay TV-gan caalamiga ah Universal waxay uga warrameen dareenkooda Abdullahi Cadaani Mahdi oo ka qalin jabiyay kulliyadda caafimaadka ee Jigjiga Health Science College qaybta clinical nurse department oo galay kaalinta koowaad kuna mutaystay dhibco gaarayo 95.17 boqolkiiba 3 sano aad baan u faraxsanahay abaalmarinta la siiyay oo abaalmarin qaali ah waxaana yacnaha doonayaa inaan halka ka sheego in aan u shaqeynayo wadankayga si wadanimo iyo daacadnimo ku jirto hadda shucuurtayda maanta waxaan ku koobi karaa ma jirto maanta maanta adduunka igu farxad badneed maadaama aqoontayda maanta heeran ka gaaray waxaan u mahad celinayaa dowladda deegaanka Soomaalida maanta waxay farxad galiyay madaxweynihii kiilka oo maanta ay hortaagnaa waxay farxad galiyay oo kala maanta ardaydeedii oo maanta aan si fiican u qalin jabiyay waa markii lixaad oo ardayda wax ku barata kulliyadda caafimaadka ku yaala magaalada Jigjiga ay ka qalin jabiyeen waxaana ku qalin jabinaysa in ka badan 200 oo ku qalin jabiyay shahaadada diblomaha Ahmed Kaabe TV-ga caalamiga Universal howlka weyn ee shirarka ee magaalada Jigjiga